qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Taleex uu helinayo Chief Caaqil Duulan ayaa ka hadlay ayax dhibaatooyin badan ku hayay maalmihii ugu dambeeyay degmada Taleex iyo waliba deegaanada hoos yimaada ay ka mid yihiin Jalabuto, Baraaqo, Nuguul iyo waliba deegaano kale iyadoona ayaxan dhibaatooyin badan u geystay dhowr hoglood oo ka daayay maalmihii ugu dambeeyay deegaanka. Odayaasha ayaa baa ku diray qurbo joogta u dhawaatay deegaanka iyo waliba maamulada Soomaaliland iyo Puntland inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ku haya ayaxan deegaanka. Bismillahir Rahmanir Rahiim. sida odayaasha hore bay idin sheegeen halkan waxa weeye dooxada Bahalle oo ka tirsan degmada Taleex. Waxaan u sheegnaa caalamka anigu waxaan ahay nin goobjooga baan ahay waxaan ahay barta ayax uu joogo raggii joogay baan ka mid ahay meeshaas ilaa 180 kiiloomitir oo isku weera ayuu bahalkaasi haystaa xoolaha iyo dadka wuxuu ku hayaa fara ba'an meeshii uu hal saac fadhiyo ama uu fadhiyo nus saac geed weyn iyo geed yar iyo mid cawsa hal saac gudahood buu kaga soo baxayaa meeshaasina waxa uu ekaanaysaa lima degaan. waxaan markaa u sheegnaa caalamka hay'adaha dawliga iyo kuwa lookalka iyo maamulada waxaan u sheegnaa ilaahay baa waxa naga qaban kara inay naga caawiyaan oo ay si degdeg ah nooga soo gaaraan oo ay wax ka qabtaan. Shayga horeeyay sheegeen bahalka ayaxa la dhaho ayaa dhibaato baan nagu haya degmada Taleex iyo eeriyadeeda. Waxaan ku codsanaynaa wixii wax ka qaban karaba inay wax nagala qabtaan ama jaaliyadii u dhalatay degmada Taleex iyo eeriyadeeda ahaato iyagoo waliba aan iyaga leenahay si degdeg ah inaga soo jawaabaan iyo maamulada waliba Soomaaliland iyo Puntland oo labaduba lug kula jira degmada Taleex oo dadkoodina joogaan oo ka shaqeeyaan wax ka soconaya iyo wax matala iyo waxaan mid u dhaqdhaqaaqayaan midna jirin degmada Taleex. waxaan ka codsanaynaa maamuladana dadka aan waxba u qabanayn degmooyinkooda inay jawaab u soo diraan si wax looga qabto ayaxa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. waxaan ka hadlayaa hawl baliyaan soo noqnoqoysay bahal la yaraa ayax laba masiibo oo labaduba jiraan. labada masiibo mid waxa weeye ayax bahal la yiraahdo oo nalagu fiinta careeyay meesha la xarin iyo godaal inta ka dhaxaysa dooxooyinka hadday tahay Nuguul hadday tahay Jalabuto hadday tahay Bahalle hadday tahay Xaarquba hadday tahay Guryasan hadday tahay Ashkarucumo hadday tahay Xundurgaal hadday tahay daantaas iyo ilaama kacaya bahalkaas ku habsaday farabaan buu bahalkaas ku haya inda way TV-yada kama hadlin waxa maanta TV-ga ay keenay haddii meeshaan jooga waa Bahalle ninkii garanaya waa Bahalle aan taagnahay niman odayaal ma aanu yimi waa xalay baan tagi meesha waxa ka taagan bahal la yiraahdo ayax oo aynan waligaan arag oo aynan maqal oo aynan arag oo wax sheegaya aynan arag oo cas oo midabkiisu casaan yahay oo aad aragteen bayratay TV-yada iyo dhulka aad ka aragteen baalkaas uu ka ayaa quraacdaas uu ka dhigay waa arta suuxii xiray waa arta bal quraac suu ka dhigay day uu diiranaya meesha uu ku tago roobkii hadeer daraad ku day waa ka dhulkiisu waa arta cirka buu uga tagayaa cirku ugu tagayaa dhibicda baalka waxaanu leenahay wixii danaynaya degmada Taleex gobolka Taleex degmada Taleex waxaan leenahay cidii danaynaysa wara soo gaareen oo laga soo gaareen hadday jaaliyadaha tahay u dhashay meesha hadday tahay kuwa islaamiga hadday tahay muslimiinta hadday tahay federaalka hadday tahay maamuladan mid waa degan midna sheegalayo waxaanu leenahay war meesha laga soo gaaro bahalka ilaahay ma naga soo gaari karayaan u malaynayaa ilaahay naga soo gaar war idinkuna nacaawi haddaan nacaawi karaysaan. dhanka kale Chief Caaqil Duulan ayaa ka hadlay arrimaha saami qaybsiga Soomaaliland ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn isagoo caaqilku sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka dhagaadeegayo arrimaha saami qaybsiga Soomaaliland ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn. caaqilka ayaa sheegay in haddii arrintan waxba laga qaban waayo aysan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn aysan wax doorasho u diyaar garoobi doonin isla markaana aysan ka dhici doonin. waxaan kaloo ka hadlayaa arrin soo noqnoqolaya inuu soo noqnoqoyo xagga Soomaaliland door ahaa xildhibaano iyo wax la isku hayay iyo kubushinno laga hadlayay inuu weyto waxaan leeyahay Muuse Biixi waxaanu sheegayaa haddaanan xaqayaga helin oo aanan xaquuqdayada helin
oo xildhibaanada waxaanu ku leenahay intay saaqleeyahay dhulbaanta leeyahay haddaanan helin wax doorashay ka dhici mayso gobollada bariga ha ku talagelin inay ka dhacdo ka dhici mayso anigoo ku hadlaya afka caaqiliinta afka isimada afka odayaasha afka dhallinyarada afka isimada dhulbahanta meel kastuu joogo ka gaan waxaan ka hadlayaa inaan wax doorashay meeshaa ka dhacay waxaan kaloo ka hadlayaa haddaa istaahid muquuni dhulbahanta inuu maanta ku dagaalamaya arrinka waxaan u sheegayaa dhulbahanta meel kastuu joogo dal iyo dibad inta iskaga keen dhimata maalin kasta inaga dhimamayso nimanka isaaq dhexdooda iyo somalilan waynu dagaalamaynaa war u diyaargarooba maalin kasta 200 wiil baad iska dishaan dhexdiinna hal maalin aan ku eegno 400 baan idin leeyahay haddii uu muuse diido wax aanu la wadaagno iyo waxaanu la leenahay midna ma jiro waxaan u sheegaynaa qaramada madow waxaan u sheegaynaa igad waxaan u sheegaynaa soomaaliya lama la wada geli karo Soomaaliya laguma wada geli karo waxa lagu geli karaa Soomaaliya hadday Soomaaliya la gelayso waxay ku gelaysaa iyadoo isaaqa annagoo dhulbahanta ah annagoo warsangeliya ciise iyo gudabiisay midna geli maayo shirka waa loogya dhulbahantana waa ka tashay meel kastuu joogo inaasan gelin waanu ka hadlaynaa adduunkaan u sheegaynaa ummaddaan u sheegaynaa inaana ku wada socon annagoo aan heshiin oo aan ku heshiin dhexdayada annagoo aan ku heshiin oo Soomaaliland iyo dhulbahanta uusan ku heshiin wax uu qaybsanayo oo qaybta uusan ku heshiin inaan Soomaaliya wax wada hadal la gelin waa u sheegaynaa wasiirka cusub hadda la magacaabay aan u sheegaynaa farmaashaan u sheegaynaa gudoomiyahan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa xildhibaanada war lama geli karo war yaan been la isu sheegin war heshiis ma nihin war waxaanu heshiis ku nahay ma jirto war waxaanu leenahay muuse biixiyo war kor baad eegaysaa hooseeg war hooseeg oo ha ka dheerayn Soomaaliya beebashiil baad ku qabsatay baasuukaan haysanaa